waxaan doonaynaa inaan xusuusino naftayada adigana aan ku xusuusino adoontii Allah waxa qofka uu la kaalmaysan karo ka gudubka sakaraadka mowdka iyo mugdiga qaboorta iyo imtixaanka jira iyo waxa kaalmo u noqon iyo garab markuu la kulmo oo hor istaago alla weyne jalla wa ala ee cadaabtii iyo ciriiriga qofka aakhiro uu kaga samata bixi karo wuxuu yiri nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wa sallam isagoo inoo tilmaamaya jidka badbaadada dhowr amarada alle ku faray si uu isaguna ku dhawro dhowr amarada alle hortaadaad ka heliya ogow oo tixgeli xilliga barwaaqada alle ha iska ka xil saaree marka dhibaatada ku hayso haddii aad cid wax weydiisanaysidna alla oo kaliya weydiiso haddii aad cid kaalmaysanaysana alla oo kaliya kaalmayso ogow in haddii dadoo idil isu yimaadaan oo isugu yimaadaan inay wax ku taraan ayaan ku tarayn wixii uu alla ku qoray maahe haddii ay isugu yimaadaan oo isugu kulmaan inay dhibaato ku geystaanna kuma geysan karaan waxaan ahayn wixii uu alla ku qoray mooyaane qalimaantii waa la qaaday waraaqihiina way ingegeen waa sidaas adoontii Allah ha eegin wixii alla ka xarimay ha u fidin gacantaada wixii uu alla ka xarimay ha ku hadlin waxun cidna ha xaman qofna waxa ka sheegin hadal wanaagsan inaad ku hadasho ku dadaal codkaaduna ha gaabnaado oo hadal tanaaga ah iyo habaarka caruurtii walaalaha iska ilaali ha dhageysan walaashii muslimadda ah wixii alla xarimay sida xanta heesaha xun ee dhilaysiga iyo xiriirada xun qurxiya ee dhiirageliya ha u muujin bilicda iyo quruxdaada waxaan ahayn ninkaaga iyo kuwa aan ku geeyin aan marnaba inay ku guursadaan u banaanayn sida wiilashaada aabaha awowga walaalka kula dhashay adeerka aabaha la dhashay abtiga hooyada la dhashay iyo wax la mid ah iska jiro ka digtoonow galka ragga gayaankaaga ah taasi waa xaraane aan banaanayn waana calaamad muujin xishood la'aan iyo xil darro iskana jiro ka digtoonow waa xaraan maqtacahe iyane inaad meel kula keliyowdo ninku gaya xitaa hadduu qaraabo dhow yahay iska jir sidoo kale inaad keligaa safarto muxrim la'aan muxrimna waxaa ku ah ninkaaga ama ragga kuwooda aan ku geyin iskana ilaali inaad guriga ka furto cid idin la'aanta ninka iskale guriga oo mid darsoon ah oo walaashayda muslimadda ahi oo ha fududaysan dambiyada xitaa kuwa yaryar waayo buuruhuba waa quruurux isu tagay walaashayda muslimadda ahi noqotii alla ka baqda sir iyo caadba abaar iyo aaran wuxuu yiri nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri alla weyne kor ahaaye ma jiraan wax uu igu soo dhawaado adoonkayga aan ka jeclahay wixii aan ku farayeelay ilaali salaadaha shanta ah oo noqotii u ilaalisa sidan oo kaamil ah waayo salaada haddii iyada laga aqbalo camalkaaga kalena waa laga aqbalayaa haddii lagugu celiyana allaynu ka magangeliye camalkaaga kalena oo dhan waa lagugu celinayaa oo walaalay tukana sunnooyinka waa sahaydaadiya waxay kuu kabi dhammaystirayaanna wixii kaa nuqsaamay xagga salaadaha faralka iskana jir inay hal salaad subax ama duhur ama casar ama maqrib ama cisho dheel kugu dhaafto ilaa waqtigeedii baxo waayo haddii aad salaad keliya adigoo og iska dayso ilaa waqtigeedii ka baxo waa kugu gaalnimo aad diinta kaga bixiso sida ku cad aayadaha qur'aanka iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam asxaabtiina ay hadalladoodii ku cadeeyeen xaqiiqdii salaad la'aan waa diin la'aan waa damiir la'aan waa dullinimo iyo darxumo qofka aan tukanna waa u kalitaa daayarada iyo doofaarada ee salaada ogaaw salaada walaashay muslimadda ahi oo hanaankeeda toosi dabadeedna walaashayda muslimadda ahi ka mid noqo kuwa badsada akhrisashada kitaabka alle ee quraanka xaraf kasta oo aad akhriso waxaa kugu sugan ajar wuxuu yiri rasuulkii alla sallallahu alayhi wasallam ulama jeeda alif laam mim baa xaraf ah waxaan soo ula jeedaa inuu alif xaraf yahay laamkuna xaraf yahay miimkuna xaraf alla badana inta fadli ku jirta quraanka akhriskiisa badanaana dumarka moog arrinkaas badanaana guryaha qabuurta oo kala noqday aan lagu akhrin quraanka ogowna ha moogaan walaashayda muslimadda ahi
xusida alle sida inaad ku wardido qowlka ah allahu akbar alxamdu lilah subxaana allah laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir iyo guud ahaan wardiyada ka sugnaaday nebiga sala allahu calayhi wasalam ee la akhriyo subxaha iyo galbihii iyo munaasabadaha gaarka ah sida wakhtiga jiifka ama wakhtiga aada hurdada ka soo kacayso ama wakhtiga guryaha laga baxayo ama la soo gelayo iyo wax la mid ah waxaanu ku saarannaa addoontii allay inaad laasimto wixii alla kor ahayo ku faray sida xijaabka asturaadda oogadaada oo dhan markaad gurigaada dan uga soo baxayso ama raggayaan hay ka agdhow yihiin taa oo alla kugu waajibiyey 7 sano korkoodna uu kaa soo amray walaashayda muslimadda ahi waxaa tahay jawharad la ilaaliyey jawaahirtuna waa in la xafido jawharadaha miyaa la xoraa ama looga tagaa suuqyada iyo waddooyinka si ay gacanta ugu dhigaan xaasidiinta iyo kuwa qalbiga ka buka may wallaahi walaalay islaamkaa ku dhowray waajibna kaaga dhigay xijaabka ee noqo tii sida dhabta ah u qaadata kuna dadaal walaashayda muslimadda ahay barashada diinta islaamka si aad adduun iyo aakhiraba ugu liibaantid rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii jid u mara cilmi doon alla wuxuu ugu sahlaa jidka jannada alle iyo malaa'igtiisa iyo inta samada joogta iyo arlada iyo xitaa quraanyada godkeeda ku jidha iyo kalluunka badda waxay u dembi dhaaf dalbaan kuwa dadka khayrka bara miraha iyo faa'iidada ka dhalan barashada waa inaad wax barto dumarka diinta iyo wanaagga aad ugu yeerto xurmadda xushmada xijaabka iyo xishoodka gaarsiisi diintii alle wanaagga farto xumaantana reebto ugu dambayntii walaashayda muslimadda ahay haddii aad cid kala saaxiibayso dumarka waxaad kala saaxiibtaa kuwa ah raaliyooyinka dhowrsoon ee rakuucda iyo sujuudda badan muslimadaha ah iyo mu'minadaha ee xusa alla in badan waayo kuwa waa ka mid saadka garabka iyo kaalmada ku noqon aakhirada يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا haweenka nebigow la mid ma ahidin mid haweenka ka mid ah ee alla ka cabsada ee hadalka habdabcinina yuusan kan qalbiga ka bukaa hunguriyoone hadal wanaagsanna dhahaya guryihiinana jooga hana ismuujinina ismuujintii jaahiliyadii hore salaadana ooga zakadana bixiya alle iyo rasuulkiisana adeeca wax kalena ma ahee alla wuxuu rabaa inuu xumaha idinka bi'iyo ahli beytkow oo daahirin idin daahiriyo xusuustana waxaa guryihiina lagu akhriyayo oo aayadaha alle iyo xikmadda ah allah ah xogogaal warqabeena muslimiinta iyo muslimadaha iyo mu'min malaha iyo mu'minad toonna markii ay alle iyo rasuulkiisu arrin gooyaan inay iyagoo ikhyaar taladooda ah yeeshaan kii alle iyo rasuulkiisa caasiyana dhumid cad buu ka dhumay xaqa